بسم الله الرحمن الرحيم ودكتور عبد الكريم أحمد محمود أهنا هرمود كلية داوة يقلين كجامعة السلام وعن جعلها إن ما أنت كهالله أرن آد مهم وحاجرو حنون آد وجرا مقالدا إيه مقالوين ككلاء درس كلاه إن مجيء سنة أي ويقانان بولشدا كدودية xanuunkaas oo dadka intooda badan ay ka cabanayaan baryahan xanuunkan magaciisa waxaa la yiraahdaa chikungunya infection waxaana keena virus magaciisa la yiraahdo chikungunya virus xanuunkani waxa uu ka jiraa dunidoo dhan Africa, Asia, America meelaha ugu yar ee uu ka jiro waxa kamid ah Yurub xanuunkan markii ugu horeysay waxa lagu arkay dalka Tanzania oo magaca loogu sameeyay sanadkii markuu ahaa 1952 xanuunkani waxa faafiya inta badan waxa loo yaqaano mosquito ama kaneecada ama duumada xanuunkani waxa uu leeyahay calaamado dhowr ah oo ay ugu horeyso qandho badan qofku inuu dareemo iyo madax xanuun aad u badan sidoo kale murqa xanuun lafa xanuun u badan kala goosyada way dhacdaa dadka qaar inuu kala goosyada barariyo ama finan uu ka soo saaro xanuunkani dhibaatooyinka uu dadka kaga tago waxa kamid ah lafa xanuun joogto ah ama kala goosyadu aad u xanuuna xanuunkani inta badan wuxuu iska baabaa wax ka yar toddobaad oo uu qofka ka baxaa xanuunkani dhimashadiisa aad uma badna balse dadka waayeelada ah iyo caruurta iyo dadka xanuunada kale qabo ya laga yaabaa inuu dhibaato aad u waaweyn gaarsiiyo xanuunkan dawo sax ah ma lahan oo gaar u ah wali ma jiro wax la yiraahdo antivirus viruska keena dawo ka hortagta oo loo sameeyay ma jiro sida awgeed waxa la sameeyaa kaalmaati in qofka la siiyo oo qandhada laga jabiyo xanuunka laga yareeyo dadka intooda badanna waxa la siiyaa paracetamol xanuunkan way jiraan talaalo iyo wax loo sameeyay oo dunida ay sameysay oo meelaha qaar maxaan ku raahdaa gaaray balse hay'adda caafimaadka adduunka wali ma aysan approve gareynin oo ma aanay fasixin oo ma aanay tijaabin maxaa la yiraahdaa dhibaatooyinka vaccine-kaasi uu keeni karo iyo faa'iidooyinka uu leeyahay hawshaasi waa hawl socoto wali aan dhamaan waxaan rajaynayaa qof walba oo xanuunka nuucaan ah uu ku yimaado inuu wax badan ka fahmo uu ogaado xanuunkan inuu yahay xanuun waqti yar isaga baaba'ayo dhibaatooyinkaas ay dhici karaysa inuu kaga tago sida uu isaga maareyn lahaana ay tahay inuu paracetamol qaato waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh